iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo tarayeen cabashada dadweynaha reer Burco ay ka muujinayaan meelooyinka ka qarxa xaafadaha kala duwan ee dadweynuhu ku nool yihiin ayaa arrintaasi waxa maanta si degdeg ah uga jawaabay maamulka gobolka Togdheer oo kaashanaya hay'adda Miinasaarista ee Hallow Trust waxaana maanta si rasmi ah shaqadii u bilaabay hay'adda Miinasaarista ee Hallow Trust si loo badbaadiyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana maanta kulan ballaaran loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah si looga codsado inay la shaqeeyaan kooxaha Miinasaarka gacanna uga siiyaan hawshooda gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer Gaashaanle Axmed Xasan Cabdiraxmaan Ilkacase ayaa bulshada rayidka waxay fareen amaawir ku aadan in lala shaqeeyo kooxahaasi Miinasaarka ah mar labaad baan ku celinayaa shuruud la'aan wax allaali wixii aan bilahayn ee hay'adda miinadu ay u baahato waa lagu caawinayaa waxa loo tixgelinayaa dhammaan inta shaqadu ka socoto inay wax gaadiida iyo wax dhex galatoona aan jirin waxaan aad idinku muujinayaa dareenka ah iyagoo inoo dhaqsanaya inay labada team wax allaaliyo wixii information ah ee dhulka dushiisa yaala ee akhbaar laga hayo in lagu caawiyo waxaan aad kulli runtii ugu heshiisnahay sida ugu dhaqsaha badan inay sakadaha uga dhex bixi doonaan sida ugu dhaqsaha badan waxa laga hadlayaa waxa weeye miino laga saarayo magaalada gudaheeda waxa laga hadlayaa miino laga saarayo magaalo la degan yahay oo dadkii degan yihiin oo xoolihii joogaan oo noloshii taalo oo guryihii lagu jiro ayaa la doonayaa miino in laga saaro waxaanu ka hadlaynaa horta waxa cuqaasha loogu yeedhay ee odayaasha loogu yeedhay ee waxgaradka loogu yeedhay ee ciidamada biliiska loogu yeedhay waxa weeye inaynu waxa intaynu fahanno qaabkaynu wajahayno aynu hay'adda go'aan cad siino maanta go'aanka cadaynu siinaa waxa weeye magaaladii miina ku jirta waynu isla qaadanay taas oo isla ognahay miinada magaalada ku jirta gudaheeda sees bay ku jirtaa guri dhisan bay hoostiisa ku jirtaa waxaasaa la doonaya in laga hadlo geesiisana mas'uul ka socday hay'adda Miinasaarista ee Hallow Trust ayaa waxa warbaahinta uga waramay qaabka ay shaqada u wadi doonaan halkan goobtan aynu joognaa waxa weeyaan goobta October waa accidentkii 2 toddobaad ka hor halku ka dhacay hawlgalkii koowaad baanu imika ka bilaabaynaa waxaanu keenay mishiinkan xagga naga dambeeya ku soo waran oo ah cagaf loogu talagalay Miinasaarka taas oo aan ku rajo weynahay inay ka bilowdo halkii 2011 ay ka bilowday accidentkii ugu dambeeyayna ay ku gaadho waxa ka howlgeli doona team ka kooban labada shift oo ka kala bilaabi doona mid 6 subaxnimo ilaa 12 Bashir Ibrahim Universal TV Burco